أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ثم الصلاة والسلام على أفضل الرسل وأكرم البشر وأحب الخلق إلى رب الخلق إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد dhammaantiin adduunka meel kastood kaga sugan tihiin waan idin salaamay. waxaan inagu salaamay salaanta islaamka mar labaad, mar saddexaad, mar afraad insha Allah caawa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. walaalayaal, waxa aan ka cudur daaranayaa mar kale haddana dhinaca fanka amba technicalka oo ay ka imanaysa farsamo. marka insha Allah waa la xaliyay sidaan iminka filayo. waxaan insha allahu tabaaraka wa tacaala galaynaa mowduuceennii aan ku ballansanayn ee ku saabsanaa falaqayn degan siyaasadeed, akhris fikradeed, dib u eeg aan la yeelanno barnaamijkii aadka u halista badnaa ee uu soo jeediyey madaxweynihii amba hogaankii hore ee ururka amba shaqada niisa mukhaabaraadka guud ee dowladda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, mudane fahad yaasiin. waxa weeyaan wuxuu bixiyey waraysiga waxaa ka qaaday wariye Soomaaliyeed oo aad loo yaqaano oo magaciisa la yiraahdo Faarax Cabdilaahi amba la dhaho Faarax Cabdilaahi. Faarax wuxuu waraystay ra'iiskii amba hogaankii mukhaabaraadka Soomaaliya 5 sano, mudane amba la taliyihii madaxweynaha ee dhinaca amniga muddo 5 sano ku jiray dowladdii Farmaajo. ayuu waraysi aad khatar u ah oo ku tilmaami kara inuu yahay waraysigii sanadkan, haddii uu noqonin waraysigii ugu culusaa 20kii sane ee 2020 qarnigan 21aad. wuxuu ani leeyahay waa waraysigii ugu culusaa. maxaa yeelay waxaa laga dhaqaaqayaa dadka daawaday, waxaa laga dhaqaaqayaa arrimaha uu ka hadlay, waxaa laga dhaqaaqayaa sida loo sugayey, waxaa laga dhaqaaqayaa sida loola falgalay, waxaa laga dhaqaaqayaa sida looga jawaabay, waxaa laga dhaqaaqayaa sida ay dadku analysiska ugu sameeyeen, hadday yihiin kuwo isaga ka soo horjeeda iyo hadday yihiin kuwo isaga la jira. marka intuba iyo kuwo dhexdhexaadaba intuba way ka hadleen. arrintaas waxa ay ku tusaysaa halisnimada uu lahaa waraysigan lala yeeshay Fahad Yaasiin. okay, waxaan anigu aan jeclahay hadduu ilaahay yidhaahdo tabaaraka wa tacaala inaan ka hadlo ilaa iyo 6 arrimood oo waaweyn. laakiin inta aan ka hadal 6da arrimood ee waaweyn waxaan jeclahay inaan 3 arrimood aan muqaddimo ka dhigo. horta muqaddimada koobaad waxa weeyaan walaalayaal, qofka bini aadanka ah ee bisil, qofka manhajiga ah ee muslimka ah, waxaa laga rabaa markuu arrin analysis saarayo oo taxliilinayo inuu ku dadaalo 2 arrimood. arrinta koobaad waxa weeye inuu u hadlo si cilmiya, 2 inuu u hadlo si cadaalada. 2da arrimoodi waxay yihiin 2 arrimood oo aad iyo aad u muhiima. lama rabo inaad janjeer noqotid, lamana rabo waxaad ogeyn inaad ka hadashid. anigu wax badan oo ogeyn kama hadlayo, waxaan ogahay baan ka hadli doonaa. 2 waxaan isku dadaali doonaa inaan ahaado qof caadil ah oo garnaqa oo garta uu naqayana aan dhanac aan u janjeerin. raxmatullaahi calay ibnu taymiya wuxuu leeyahay kelmad aad u qurux badan. marka 4 arrimood la baarayo, marka dadka la baarayo, marka la baarayo manaahijta, marka la baarayo dowladaha iyo marka la baarayo xadaaradaha amba ilbaxnimooyinka, wuxuu yidhaahdaa ina allaha yuxibu alkalaama bicilmin wacadlin. ilaahay wuxuu jecel yahay tabaaraka wa tacaala marka arin laga hadlayo in looga hadlo si cilmiya iyo si cadaalada. lambarkaas wuxuu u sheegay sheekhu, wuxuuna yidhi wa icطaau kullu dii xaqin xaqahu, mid walibana in xaqiisa la siiyo iyaa muhiim ah. wuxuu kaluu yidhi raxmatullaahi calay wa tanziili innaasi manaasilahum, dadkana in la dejiyo meesha ay ka degan yihiin, nolosha in laga dejiyo waa muhiim buu yidhi raxmatullaahi calay. marka arrinta koobaad een ku dadaalayna waxa weeye inaan manhajka ilaalino, waa muqadimo weeye. arrinta labaad waxaan ku dadaali doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo
inaan iska ilaalino markaan hadlayno ama marka aan dhegaysanayno ama marka aan comment saarayno saddex arrimood oo Soomaalida ku badan inteena badan inagu badan number 1 waxa weeye waxa loo yaqaano muraahaqa fikriya maxay ka dhigtay muraahaqa fikriya inaan iska madaxeena han kicino waxaan eegaynaa maada qaal ma eegayno man qaal muxuu yiri baan ka taba tagaynaaye yaa yiri aniga muhiim ima aha qofka yiri muhiimadiisu adiga macna kuma sheegayso ubadka waxay eegaan ama dadka aan wali qaan gaarin waxa inta badan ka fikiraan hebel muxuu yiri heblaaya maxay tiri laakiin dadku marka qaan gaaraan ay bislaadaan waxa muhiim u ah muxuu yiri muxuu ka hadlay muxuu dhahay hadalka la analysis la galiya shakhsigu muhiim ma aha shakhsigu xataa haduu yahay wixii aan nabiga ahayn iyo saxaabadii iyo aalubeydkii iyo dadka ilaahay qiimeeyay iyo ambiyadii aan ahayn shakhsi kasti uu soconaya waa fanaa laakiin afkaarta haraysa marka annagu inaan markaa bisayl fikradeed waa inuu jiro laba waa inuu jiro bisayl siyaasadeed waxaan ka hadlaynaa waxa weeye dhinaca siyaasadda siyaasaddu waa maxay waxa asalka in la isriixriixo in la isdiriro in la isgujiyo in aan la isku naxariisan siyaasaddu ma aha akhlaaq way leedahay siyaasadda islaamku laakiin majaalkeegu ma aha jumciyad khayriya ma aha urur sabafala siyaasaddu masaajid ma aha siyaasaddu cibaado ma aha oo qura siyaasaddu waa xoog siyaasaddu waa fikrad siyaasaddu waa vision siyaasaddu waa ka cabba igama cabtid weey marka siyaasadda markaan akhrinayno inaan ku akhrinin luqa hatifiya luqad hatifiya muxuu taa uga hal taade ma la ooyo waxa ma hal siyaasadda lama ooyo siyaasadda lama calaacalo siyaasadda waxa laga hadlaa waxa jira muxuu u jiraa baa laga hadlaa okay siyaasaddu waxa weeyaan waa la majaala lil awaatif fi siyasa siyaasadda awaatif lama soo gasho akhlaaq waa la soo gashaa etik way leedahay siyaasaddu arinta saddexaad waxa weeyaan المراهقة العلمية وإن قان قادنو أون iska ilaalina inaan ka hooseyno qaangaadnimada dhinaca cilmiga qofka marka aad ka hadlaysid wuxuu yiri waxa jira manhaj la raaco oo maanta aan raaci doono waxa dhada methodology qof kasti waa hadli karaa laakiin waxaad ka hadlaysid waxaad ku garan kartaa muu cilmiyeysan yahay mise ma cilmiyeysno arintaasina waa muhiim arintaasi waa iyadna waa muqaddimo labo saddex waxa kale oo iga muqaddimo ah akhrista aan maanta la sameeyna waraysigii shanta cish bari socday ee dheeraa ee hadana gaabnaa waxa aan eegi doonaa inaan ku sameeyno waxa uu yaqaano qiraa'a shumuliya inaan dhawlba ka eegno hadaladiisa inaan dhawlba ka eegno shakhsiyadiisa inaan eegno dadka uu tuhmay inaan eegno maxaa ku meersan aan eegno oo aan ku akhrino shumuliya qaar baa ii soo qoraydi dhooqada Soomaaliya Sheekh Cabdiraxmaan waan ku jecelnahay iska daa aniga mid baa inii sheegay walaalayo qofka i jecelayno ha i jeclaanin anigu manaag baan ku noqonayaa maxay jeclaanaysaa limaada tuhibuni anigu waxaan aad ula yaabaa hebel waan jecelahay hebelna waan nacaa caalamul afkaar la isma jeclaado waa la isqanciyaa caalamul afkaar caatifa male aniga waan ku jecelahay ma isguursanayna waan ku jecelahay ma abiyo hooyaan isku dhahay waan ku jecelahay maxaa limaada tuhibuni aniga ixtiraam ana waan ku ixtiraami aniga iqadir ana waan ku qadiriye aniga muhiimadeeda arag ana muhiimadeeda arkiye inta wixii ka sokeeya anu waa soo dhaafay caalamul awaatif lastu minhu walaysa minni caalamka awaatifta anu kamid beehi hatta hadaad maanta oo dhan ijeclaatid waxba ima biirnaysid hadaad in nicibtahayna waxba iga maridaysid saabqa Cabdiraxmaan Bashiir ila yawm alqiyamah ilaahay baa og waxaan ahay waxaan doonayo marka ha gelin arinta Soomaalidu waa dhooqe iyaa ku yiri qofka wadaadka ee muslimka dhooqada iska ilaaliya iyaa ka yiri qofka wax bartay waa inuu dhooqada ka fogaado waa inuu dadka dhooqada tuso yiraahdo halkan dhooqa taala xagana mushkilad baa yaala xagana ceeb baa taala xagana horumar baa yaala hadduu qofka caalimka ah oo daaciga ah oo mufakkirka ah uu sida u hadlayn nolosha ka baxo dadka ha iska dabad geliyo ma waxaan ka hadlaynaa ilaa yawm alqiyaamaha wax la yaqaano ciyaalka islaamaha xaydka nifaaska waxa Soomaalidu way taqaanaa waxa yaala xaqaa'iqda
inaan ka hadalnaa muhiima ikhwaani fillah arrintaas waxaani waa qiraa'a shumuuliya laba waa qiraa'a mutawaasina anigu waxaan isku dayi doonaa inay qiraa'adeedu noqoto mid maaragtay isku dheeli tiran oonan janjeerka iska ilaalisan okay waxaan ka jawaabi doonaa su'aalo markaa saddexaasi waa muqadimadii waa hordhici waa metodolojiga aan raacay weeyaan okay mawduuca iminkaan galayaa waxaan ka jawaabayaa 4 su'aalood waxaan ka jawaabayaa su'aasha why muxuu u hadlay iminka ninka la yidhaahdo Fahad waa yaabaysaa mogta anu Fahad isma maqal ma sheekaysano nolosheedan 2 jeer baan saragnay waa inii sheegay cumrada xajkaan isku aragnay alxamdulilah kadibna waan salaanay waan isdhaafnay isna telefishinka igu yaqaanay Djibouti 30 sano 20 sano telefishinka soo baxay waa yaqaanay waa bartay jaziiro igu arkay anoo shariica wal hayad barnaamijka ka soo baxay isaguna uu ka shaqeynayay okay laakiin iminka markuu wareysiga bixina ma aan wareysan maxaan ka hadlayaa muxuu u hadlay maxaan ku eegayaa manhaj why laba waxaan ka jawaabaynaa wa ayo Fahad يلا وكان جوابنا وأي فهد وحكي جوابنا ماذا يريد فهد فهد محور ربع محوها اللوايي قهر محوها اللوايي لما بلوت كذب محو إمك أوهد لي إيادنا وحان كو أغينا علمي لا يقانو أون حالي ilaa saaka aan buugaan aad u fara badan ka akhrinay okay intaas ka jawaabayna su'aalahan si aan uga jawaabno waxaan u baahannahay in aan eegno Fahad markii waraysiga su'aasha dadkoo dhan isweydiinayaan ma la isla soo diyaariyay mise wariyuhu wuxuu soo diyaarsaday su'aalo Fahad uunan ogeyn oo uu ka jawaabayay anigu marka aan u fiirsaday maqaalkii aan qorayna waan ku qoray warka uu hayay Fahad su'aalaha la weydiinayo 90% laakiin ninka wariyaha ah maadaama uu yahay wariye xirfad leh waxa ku abuurmayay su'aalo cusub oo uunan ku talagelin oo imanayay uu weydiinayay kadibna waxa ka dhalanayay in uu Fahadi isaga naftiisu سؤال ديار ما هين إنه أرجعه تانا واحد كده رميسي لقد جسدك سيدا كرو إيجي سيدا وجه عبارة ملك قاركود سؤال عصب إن إمادين وأركي فهد إذن وحويا سؤاله ديار بأهايان ويسلسوا أخريا تاسينا مشكلات ماله سياسيين تواوين مركا لو وريسانا يو بيدا أو أي وريسانا يان جرائد كان حرتها هين جرائد كدولة كو حدان وحال صوت دياريا سؤالها waxaana la diyaariyaa jawaabaha waliba wadanka Mareykanka marka uu madaxweynuhu bixinayo jawaabo 4 qolo ayaa la soo diyaarisa arimaha dibadda waxa soo diyaariya mustashaariinta dibadda arimaha gudaha iyo gaashaandhiga iyo amniga waxa soo diyaariya mutakhasisiinta saddex habka loo hadlo dadka loola hadlo indhaha dadka la eego waxoo dhan mustashaariin baa soo diyaarisa arinta ugu dambaysa waxaa la soo diyaariyaa sida uu ula dhaqmi doono al-as'ila al-istifzaaziya su'aalaha iqra noqda bismillah su'aalaha iman kara keeni kara argagax iyadana waxaa la diyaariyaa sida uu uga jawaabi doono uu iman karin waxa la yiraahdo istifzaaskaasi aynan isaga dhaqdhaqaajinayn okay إخواني في الله ولا ليال مركا إن لسلسو دياريو بروبليم مالي لكن وحا بروبليما ضد بلان أو سؤالها إلا لسو دياريو إيا يكو إمتا واحد هذا قرقد يقرير أي يكو إمتا أوكي وحان إمارينا إمك إخواني في الله سؤال شكوبات واي محقو هذا لي Fahad سؤال جوابته دو وحويان وحان كي جوابنا أفر أريموت كو هدونا Fahad هذل maxaa dhici lahaa waa kow hadduu aamuso oo weliba nolosha uu ka baxo sida siyaasiyiin badan ay sameeyaan maxaa dhici lahaa saddex
haddii uu fahadi sugo maxkamad in la keeno maxaa dhici lahaa afar hadduu fahadi maxkamad maaha haddii ay qolada dowladda xakuntee amnigu ay u yeedho oo ay waraysato oo qura isagoonan iclaamin maxaa dhici lahaa marka fahad muxuu sameeyey fahad wuxuu sameeyey wax dhado asabq kelmadda asabq waa inaan xafidno wuxuu ka hortagay wax soo socda wuxuu og yahay inay jirto dabkh la dabkhinayo in fahad la yidhaahdo isagaa dembiile ah waa kow annaku waxaan ognahay inuu fahad yahay muttaham nin itihaama oo ay la leeyahay dembi buu galay ah ikraam tahliil raxmatullaahi tabaaraka wa tacaala calayha waa dilay isaga iyo waxaa ka dambeeyey ururka maaragtay kooxda niisa ayaa ka dambaysay waxaa ka dambeeyey xafiiska niisa yaa ka dambeeyey dilka ikraam tahliil ilaahay naxariista jannaasiya haddii ay dhimatay jannadiina ha geeyo okay waa muttaham laakiin ma aha dembiile waxa oran doona waa dembiile waa maxkamad maxkamaddu qofka waxa weeye waa eedaysane uu eedaysan yahay laakiin ma aha qof dembi lagu xakumay ma aha okay wuxuu u dhaxeeyaa iminka inuu yahay eedaysane ka eedaysan gaar ahaan xaaskii ikraam hooyadeed way hadashay iyo isagii oo maxkamad aan weli tegin oo dembigii aan lagu xakumin maxaa u dhaxeeya waxaa u dhaxeeya meel la yidhaahdo barzakh barzakha dad badan baa wax ku karinaya waxaa ka mid a dadka wax karinaya waxaa ka mid a cadowgiisa waan sheegi doonaa ayaa ku cadow ah wuxuu leeyahay ilaa iyo maaragtay 8 qoloo cadow ku ah wuxuuna leeyahay ilaa 4 qoloo la saaxiiba intaba waan sheegi doonaa si cilmi aan u sheegaynaa marka cadowgiisu way karinayaan jikaday fadhiyaan waxay karinayaan sidii maaragtay ninka fahad la yidhaahdo maxkamadda loo keeni lahaa amba dembigan loogu soo oogi lahaa waxaana la karinayaa dadkii maragga furayey waxaa la karinayaa dadkii oo dhan marka warkaasi inta uu socdo wuxuu sameeyey isaguna wax dhahdo asabq azamani horay buu usoo dhaqaaqay marka meedaankii ay ku ciyaarayeen kooxda isaga cadowga ku ah ay ishayaan cadow mayna ishayaan oo siyaasaddu caatifo malaaniga yidhi weliba dagaalka uu ku jiro fahad sidaan sheegi doono waa dagaalka la dhahdo kasrulcidaam kasrulcidaamku waa maxay la faysjabin weeye midna midka kale uma naxariisanayo maadaama aan laysku naxariisanayn ha ka sugin inuu isaguna sugo ilaa la gowracayo waxaa jirta qaacido tiraahda cadowgaagu hadduu kugu cashaynayo adiguna kusii qadee marka inaad marxaladda lagugu cashaynaya aad usii fadhidid ma aha marka taas uu sameeyey horta arinta labaad ee uu sameeyey waxa weeye fahad wuxuu tagay turkiga turkigu waa dowlad weyn dowladda weyn ee turkigu iyo fahad calaaqa ka dhaxaysa xidhiidh baa ka dhexeeya sida qatar oo kale ma aha xidhiidh ma jirado waxba kama jiraan xidhiidh baa ka dhexeeya tababarada ugu khatarsanna sida anigu aaminsanahay mukhaabaraadka turkiga siiyey mukhaabaraadka turkiguna waa mukhaabaraadka lamber 1 ee bariga dhexe xataa israa'iil imika waa dhaafay okay mukhaabaraadka turkiga ah waxay hayaan macluumaad adag oo ah waxa bariga dhexe oo dhan lagu dabkhiyo laguna sheekaysto marka wuxuu ogaaday akhbaar halis ah oo khatar ah oo uu ku ogaaday gudaha wadanka turkiga oo keensaday in uu sidan uu hadlay uu hadlo arinta labaad waa taa weeye waa taxliilkayga arinta saddexaad waxa weeye fahad waxaa jira oo uu yahay nin 5 sano ahaa ninka ugu culus bacda madaxweynaha dowladda Soomaaliya ilaa ay dadka qaar u bixiyeen mulkiilaha dowladda marka mulkiilada dowladeedii ma jiree wuxuu ahaa shakhsiga ugu culus ee dowladda الرجل الثاني في الدولة buu ahaa muddo 5 sanadada arintaasi waxay u keentay in uu abuurto jawiga Soomaaliya inay ku abuuranto cadow badan oo uu leeyahay cadowgaasi waa daakhili waana khariji dhammaantood waxay ka fikireen wax la yiraahdo laba shay inay sameeyaan tasfiya jasadiya tasfiya macnawiya in jir ahaan laga takhaluso waana sheegi doonaa xaqiiqada dadku aynan ogeyn in la dilo la doonayo amba la xidho amba la waayo kow amba macnawiyan in laga takhaluso oo ah in qiimo loo yeelin uu noqdo qof aanan maalaayacniya oo ummada lagu diri karo marka isagu wuxuu sameeyay halkaana sabqi buu ka sameeyay uu soo dhaadhacay
warbixin adag oo uu bixiyey sida aan sheegi doono si ka degan madaxda Soomaalidu markay hadlayaan ayuu u bixiyey arintaasina waa arin muhiim ah arinta kale muxuu warka maanta muxuu hadlay wuxuu hadlay waxa weeyaan waxa ku socota dacaayad غير caadiya dacaayada غير caadiga ah waxa wada saddex qolo oo gaadaal ka sheegi doono qolada koobaad waa daakhili qolada labaad waa iqliim qolada saddexaadna waa dibadda shishe waa arab waxay ka shaqeynayaan in ninka la yiraahdo shaytanatu illa shaytaaneeyo ninka la yiraahdo maxaa ku dhahdaa fad inuu yahay shaytaan marka shaytanadiisa waxa ka shaqeynaya saddex qolo waa qolo gudaha oo CPC oo arrimaha aad uga shaqeysa muddana soo waday labo waa qolo gobolka ah saddex waa qolo caalami ah oo gobolka ka fog oo bariga dhex fadhida saddexda qolo waxay isku yimaadeen inay shakhsigan shaytaanayaan sababtu marka maxay tahay maxay iyakuna waxaan u sameynayaan ma ogtahay mukhaabaraadku Soomaaliya wuxuu ahaa laba arrimood buu lahaa min markii Soomaalidu burburtay ilaa imika laba arrimood buu lahaa wuxuu ahaa mukhaabaraad daciifa Italiya qiimo aan lahayn macna aan lahayn oo loo yeeriyo oo dibadda ku xidhan oo qofkii doonaba uu dhex yimaado oo maaragtay qofka mukhaabaraadki uu yahay camiil musdawija uu lababa u shaqeeyo dibaddana u shaqeeyo gudahana u shaqeeyo ayuu ahaa waad ogtihiin mukhaabaraadka dawliga caalamiga afrikaanka markay u yimaadiin waxay ka dhex samaystaan waxay doonaan anaan siinaya misaal basiit ah mukhaabaraadka Djibouti qolada loo yaqaan SDS-ta guri yar oo fool xun bay galayeen wixii ka horeeyay 2002 markii ay dhacday 11 September Mareykanku uu soo degay Djibouti waxaa la keenay mukhaabaraadka Mareykanku meeshii bay dhiseen waxay ka dhiseen meel aad u weyn oo aad u qurux badan bay xafiis weyn bay u sameeyeen laakiin dhismaha oo dhan iyaga dhisay maxaa la dhex dhigay waliba waxaan aniga aan ogahay in waxa lagu dhageysto in ay yihiin wax gudaha iyo dibadda laga dhageysto oo ah iyakuna inay dhageystaan mukhaabaraadka Djibouti iyakana in la sii dhageysto marka waxa weeyaan alxamdulillah mukhaabaraadku waxay ka shaqeeyaan caalamku saasay ahayn oo arinta koobaad arinta labaad wuxuu ahaa mukhaabaraad daciifa mukhaabaraadka Soomaaliya mukhaabaraad itaal daran buu ahaa oo daciifa maxaa dhacay markii Farmaajo iyo u yimaadeen ninkani ay mukhaabaraadka qabteen isaga sheegay والعهدة عليه بل ونحن نعلم ونقولنا هنا تقرير دولي ولا قري مخابرات كصوماليا وحين نقدين مخابرات كأوجوس الرأي جيز كأفريقيا ما حيكون عارفين لبا أرماد بيكون عارفين ويحروبين وحيكون حروبين فرجلين تدي بدها لبا حرفت بلي مادين حرفت أسي وضنا كحد فعلا توا براء لكن أنا أورن واحد هشين نوكينا مخابرات كأدون كويس بدرسدان معلوماتك لكن معلومات كل يسوي درس داي ما هم معلومات اختراق لو سميو قعنت لو هي ومعلومات ادغو بعد ان انت بخين كرتو انت انا بخينين انت اديق لو سيانا معلومات ودا صحيحه ماها ومعلومات بينا marka macluumaadka lagu siiyana information lagu siiyana waxbaad ka qaadanaysaa waxbaad ogaanaysaa maxaa lagu siiyo baaraysaa waa inay jiraan mukhaabaraadka dhexdiisa meel la yiraahdo meesha taxliil macluumaat wixii yimaade adduunka ka yimaada meel taxliilisa مثلا مصر بعد معلومات كوسوسيسي ما حيكون كوسوسيسي مصر waxa كوسوسيسي إثيوبيا سؤالك waxay maxay كوسوسيسي كينيا كوسوسيسي maxay كوسوسيسي maxay uga jeedaa Djibouti waa كوسوسيسي لماذا واي marka su'aasha koowaad waa macluumaadka la iskama qaato lama liqoon wala iska baadha idan waxa weeyaan meesha tan kor bay u kacday waxay noqotay meel caalami ah oo macluumaadka lagu hayay aynan caadi ahayn okay su'aasha koowaad waay waan ka jawaabnay su'aasha labaad baan nimarnaa horta ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin waayo anigu Fahad Yaasiin waxaan dhageystay markuu jaziira ka waramayay mar kale oo wax qorqoray wuxuu qoray baan akhriyay waxaan kale oo aad u dhageystay waraysigan shanta cisho socday ama shanta bari socday maxaa iga soo baxay وين أخيون جانب كيسة نيجاتيف كدباتات اللي وشيء دونا
laakiin shakhsiyadiisa maxaa iga soo baxay markaan dhageystay Fahad Yaasiin horta waxa iga soo baxay waa wadaad waliba waa wadaad ku rabaysmay wadaadnimo waxay tahay macallin quraan number 1 arintaas aad u qortaya number 2 waa wadaad salafi ah salafi muxuu yahay salafi wuxuu yahay aqeedada ay aaminsan yihiin waxay dagaal kula jiraan suufiyada waxay dagaal kula jiraan dadka aan kitaabka isku xukumin iyo sunnaha nabiga waxay dagaal kula jiraan barigii hore taas loo yaqaanay salafiyadu waxay dagaal kula jiraan waxa la yiraahdo in alwala wal bara waka usuushoodu alwala wal bara iyad heshiis la tahay iyad ka bari noqonaysa oo gaal iyo wixii la socda marka salafiyadu waa sida okay fikirka salafiga ayuu soo baray walina uu yahay laakiin fikirka salafiga uu tatawura uu evoluyaa isma taagin labo arinta saddexaad uu yahay Fahad Yaasiin wuxuu yahay waa qof wax badan akhriya saddexaad waa ruux wax badan akhriya maxaa u gartay inuu akhriyo maqaalaadkii uu qoray baan akhristay Fahad Yaasiin isagoo salafiya waxaan ka arkay afkaartiisa fikirka ikhwaan muslimiinka waxaan ka arkay afkaartiisa fikirka dadka aan ikhwaan islaamiyiinta ahayn reer galbeedka afkaartiisa waxaan ka arkay afkaar iska furan oo caadi ah marka qoraaladiisii marka aan daba galay waxa iga soo baxay in uu yahay qof akhristiisu ay ballaaran tahay okay arinta kale ee soo baxday wax weeyaan Fahad Yaasiin waa nin saxaafadda sida loola falgala aad u yaqaan markuu wariye yahayna waa saxafi naajixa waa wariye naajixa oo keensatay inay jaziira qaadato waa qanaadka ugu weyn adduunka carabta bal adduunkaba waxay tartan kula jirtaa CNN-ta sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Dick Cheney wuxuu yiri jaziira waxay naga badisay sida ay u maamulayso caalamka carabta inay ula hadasho marka jaziira waa television ka qaatay laba wuxuu galay markaska diraasaadka iyo abxaasta ee Al Jazeera meel ay galaan dad nuqba ah weeyaan elitku labeenta gasha afar wuxuu noqday jaziira dhexdeeda dadka jaziira ay qanawaadkeegu ay muhiim maaratay dadka u doorta ayuu galay geeska Afrika oo dhan isaga dadka dooranay okay marka halkaasina waa saxafi naajixa arinta kale yaab kala badan la wax weeyaan wuxuu naajix ku yahay in uu noqdo raqam lambar culus inuu noqdo waxaan kama hadlayna anagu muu noqday mise ma noqon uu noqdayba sidoo uu noqday markuu Xasan Sheekh la shaqeynayna lambar culus buu ahaa samaynta dawladda labo marka uu ka tagay uu farmaajo raacayna lambar culus buu noqday samayntii dawladda iyo samayntii waliba samayntii iyo samayntii shan saddex wuxuu noqday lambar culus markuu ka baxay dawladdii oo waraysigiisu wuxuu ahaa waraysi dadka oo dhani ay daawadeen ayna ahmiyad gaar siiyeen ma dhicin in ay daawadaan muddo yar oo daqaa'iq saacada ah dad ka badan inay daawadaan imisa 50,000 oo qof 100,000 500 1 milyan inay ku gaadho wuxuu la tartamay adduunyada waxa ka soo baxay ee aadka loo daawado ayuu la tartamay marka taagudaysa inuu yahay lambar culus waxa uu yahay lambar culus waxa ku tusaya in ay la dagaalameen dawlado inay la dagaalameen siyaasiyiin waaweyn lambar culus inuu ku tusaya in baarlamaanka doorashadii uu ku soo baxay in loo diido dictatoriyada laga sheekay dictatoriyada markaan ka cabsano dictatoriyadu waa 9 mar baan ka hadli doonaa laakiin dictatoriya la isticmaalay in doorashadii dadka kale ay ku soo wada baxeen oo dhan inuu ku soo baxo laakiin isaga la yiraahdo ma gali kartid oo loo diido maxaa yeelay waxay yiraahdeen hadduu baarlamaanka noo dhex fadhiisto farmaajo madaxweyne noqonaya waxay yiraahdeen hadduu maaragtay baarlamaanka galo wax badan buu helaya qaar baa la xasaan u helayo maxkamad lama taagi karayo xasaanada waa laga qaadaa qofka si maxkamad loo geeyo waxay la khaladaday ka mid tahay marka taasina maxay ku tusisaa inuu yahay lambar culus waxa ku tusay inuu lambar culus yahay oo kaleeto in uu ku dhiirado inuu yiraahdo ida maaragtay siyaasadda iyo mukhaabaraadkii Soomaaliya waan ku xoreynay dunida aniga uu yiraahdo waliba hal xakameeyo alla xakumo ma gelin hal shilin
$1 ma gelin dhismaha cusub ee mukhaabaraadka nisa waxaan ku dhisnay lacag Soomaaliyeed waxaan wax ku baadhaynay lacag Soomaaliyeed waxaan u diiday qof aan ahayn Soomaali in uu soo galo mukhaabaraadka iyo sirdoonka wararna waan hayaa dadka Djibouti iiga imatay oo ay qortay safaaradda Djibouti oo nimanka akhri doono oo ay yiraahdeen inta uu joogo maxaa dhadaa ninka Fahad wax wara ma helno waana laga xidhay wararkii oo waraaqadii oo qoran baa loo diray dawladda Djibouti wasaaradda arrimaha dibadda iyo mukhaabaraadka qaybta loo diray okay waxa weeyaan walaalayaal arintani waa muhiim jiddan marka waayo markaan ka hadlayno ma aha qof yar oo caadi ah ma aha siyaasi oo quraate ma aha nin amniga soo xakumay securityga imisa soo xakuntay ma aha waa nin culus laakiin waxa cajiiba wax weeyaan waa nin culus oo waliba dadku aynan reeraha aanan culayska lagu tilmaamin lagu daray ilaa Soomaalidu waxay sameysay wax dhado 4.5 waxay dhaadeen kooxda 0.5kii male awoodda ay leeyihiin kooxada afarta reere hal laga dhigay kuwa nuska ah ayuu ka mid yahay bay dhaadeen laakiin kuwii oo dhan ayuu ka xoog batay oo siyaasadii oo dhan uu kaga xoog batay nin wadaadoon saaxiib nahay wuxuu iga yiri mar aan wada niqaashayni oo niqaash qeyr cilmi oo ii sheegay laakiin uma jawaabin waan naxay wuxuu iga yiri waxaan anigu Farmaajo ugu horjeedaa Farmaajo waa dictator muxuu dictator ku yahay siyaad baru dhaxlay وممينا محمد سياد درهرتها مايا ما المادر بيين مايا هي واسكو رهر مركاسي waxay ka dhigtahay ikrama oo islaamay diigi abi jahal ba ku jiray abi jahal buu dhaxlay ma oran karnaa okay ma oran karno waa ka soo qaad waxa weeyaan Khalid uu islaamay waxa waan oran karnaa waxa ku dhex jira diigi al-Walid ibn al-Mughira radiyallahu anhu Khalid ma oran karnaa maya waliinda shakhsi baa quraanka lagu caayay lagu ceebeeyay lagu dulmay waxa jira ilaahay si cad uga sheekeeyay garaacay Khalidna waa qofka islaamka gaarsiiyay adduunka dhan وهكذا qof la wadaaga ma jiro Abi Talib gaal buu ku dhintay calina muslim buu ahaa bal wuxuu ahaa dadka ugu fiican ibn Khattab gaal buu ahaa Umarna islaam buu ahaa qofku ma dhaxlo fikriyan diiniyan cilmiyan aabihi kama dhaxla maskaxda iska daa walaalkii iyo adeerkii isku qolo marka qof kasti oo reerka Maxamed Siyaad Barra waxay ka dhigan tahay waa dictator ninka waxa igu akhrinay waa nin musaqafa oo wadaada oo qaa'id ah oo islaami ah waxa igu akhrinaya wuxuu ninkaasi waa sida waxa kaloo jira wuri dictator kale raado Fahad waxa ku kulmay wuri villa Soomaaliya dictatoriyadii diiniga oo salafiyada ah iyo dictatoriyadii siyaasadda oo ah maaragtay Farmaajo waxa ka dhashay wuri waxa loo yaqaano dictator murakkab oo Soomaalida halis gelisay idan waxa weey marka la isdirayo Soomaalidu dagaalka waa arkaysay markii uu Sheekh Shariif uu dagaal ku jiray hebel waan saarnay ma ninkan buu ku xog baday waan saarnaa buu dagaal lagu jira marka waa hadlaya laakiin maalintii dhaweyto marka uu hadlayay oo uu sheegayay madaxweyne Farmaajo hadii aad doorashada ku badin lahayd waxaan ku oran lahayn waad xaday waa ku oran lahayn wax la sii diyaariyay laakiin way ku fiican tahay buu إذا يمكن ولا الدقيقة محل الدقيقة وحال أركي إنه دورش دي وريجي الحوينين يكون وريجي وطن كيبال أركي إنه كل دقيقة كل دقيقة كريه صوماليا ومستحيل ألف مستحيل إن ديكتاتورية كدعضو ما تدعي كرت ديكتاتورية صوماليا لأنه ومجتمع قبلي أو قبيلة أي كحوم انتهي الدولة ده مركا قف دولة قادن كراي إيمي كاهن ويريه أوكي وحان مركا كهر لنا وحويا إخواني في الله نكاسي محل هذا مارتي فهد ياسين شخصية داوية من هو وانتاس أردن ولا سكودري ويان أوكي محو ليه هاي هالك الدنبار ويبرنا أرنتا كليتو أن أو إيمانا يا وحويان فهد وحكاها الله ورئيسي بالله ياش ورئيسي قال الله ياش وحكاها الله أرمي واوين أرمها واوين أو كها الله وحي هايان أرمها أوجب بدن أمنية قارهان إكرام تهليل إلهي نحريس الجنة سيو هذه أيدمتي وين ذنبي أنا هدافع وحويان إخواني في الله أنا مركي إكرام لواي وحان كهذلي إكرام إيادلي إياي مصلحة يوجد جرتا إكرام إني دشو واشاقي مخابراتك ويدلي كران قار الدولة دا كل حجرة أو كور جدا الدولة دا فرماجة ويدلي كران وحاكلو ديلي كرام ضد بدأ أو إن لاقان دونية الدولة دا يجودها إن لاقان دونية
waxaa kale oo dili kara dad kaleeto oo intaa midna aan ahayn marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay wax loo yaqaano albaxsu aljinaa'i albaxsu aljinaa'i waa maxay in criminalka dhacay la baadho waxaa baadha dad la yidhaahdo albaaxisuuna fi ljunaad dembiyada dad baa baadha dadka baadha dembiyada waxay eegaan iyaa kule maslaxad inay gabadhan dilaan kadibna waa la baadhaa waxaa lagu baadhaa wax idhaahdo si muxaayida waxaana la soo weydiiya as'ila musbaqa su'aalo hore waxaana la doonaa khayaal baa la sameeyaa indhaha la furaa maxaa dhici kara oo arrintan ku meersan iyaa la eegaa waxaa laga saaraa caatifada diiniga wadaadada qaar ay leeyihiin qofkii qof dila dadkoo dhan buu dilay waxani waa qadiyad wadani ah waa laga saaraa caatifada diiniga iyo waa la dilay waxa marka ay dhammaatee la garto qofkii dilay magti baa laga qaadaya amba waa la dilaya sida sharcadu tiri waxaa kaloo laga saaraa caatifada qabaliga qowmiga iyo qabaliga waa laga saaraa waxaa kaloo laga saaraa caatifada siyaasiga maxaa yeelay arrintani arrin siyaasiya maaha waa arrin qaanuuni ah waa arrin qowmi ah gabadh ka shaqaynaysay sirdoonka Soomaaliya ayaa la dilay oo ahayd waliba sargaalad waxaa dilay lama garanayo okay laakiin waxaa la garanayaa in aan la dilay wuxuu soo bandhigay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin ayaa dilay wuxuu tuhumay sida isagaba loo tuhunsan yahay wuxuu tuhumay ra'iisul wasaaraha wuxuu tuhumay wasiirka ninka la yiraahdo al-Adaala wuxuu tuhumay sawirka way soo dhigi kartaa wuxuu tuhumay Mahad Salaad oo iminka meeshii uu jooga ayuu tuhumay ragga uu tuhumay ra'iisul wasaaraha waa nin culus maxaa culayska ugu wacan فرماجو بكل ما تعني الكلمة من معنى وحا فرماجة كتخلصي مدحتنمديسي ودميي waa isaga weeyaan marka nin caadi ma nin tusbax iska sita baaha nin ma iska miskiin oo basiid ma waa nin culus weeyaan labo waxa khatarnimo ku tusaya waxa khatarnimo ku tusaya doorashada dhan sidoo uu hogaamiyay isaga oo kala baxsaday doorashada baaratay uu siiyay fursadii ninka la dhaahdo maaratay Axmed Madoobe uu siiyay fursadii ninka la dhaahdo Saciid Dani laakiin uu ka qadiyay fursadii inta badan ninka la dhaahdo iyo Farmaajo wuxuuna isku dayay in uu ninka la yiraahdo maxaa dhahdaa Fahad Yaasiin uu ka dheereeyo inuu taasiir ku yeesho doorashadii idan nabad iyo nolol wuxuu galiyay waxa dhahdaa xasharahum fi zaawiyadu ku xidhay isagaana xambaartay dawladnimadii wuxuuna ku xambaartay waxyaalo fara badan oo u baahan inaan waqtiga aan ka sheekayno okay ninkaasi waa nin khatar ninkaasi muxuu sameeyay markaa ninkaasi wuxuu booqasho ku tagay wadanada ugu khatarsan ee la dagaalama waxa loo yaqaan kacaanada wuxuu booqasho khatar oo ku tagay Masar markuu ka soo laamay Masar talaabada ugu horeysa uu qaaday waan ka sheekay doonaa wuxuu booqasho ku tagay Imaaraadka dhowr goor buu tagay Imaaraadka markuu ka soo laamayna talaabooyin buu qaaday okay in uu khatar yahay waxa ku tusaya wax weeyaan arrimahaas ba ku tusaysa muxuu markaa sheekh muxuu sameeyay muxuu u tuhumay muxuu u soo galiyay dagaal siyaasadeed baa ka dhaxaya isagu wuxuu yiri ra'iisul wasaaruhu waxa dilay qoladaasi okay isaguna wuxuu yiri anigu ma dilay mutabadala labaduba waxa isku soo yaadiray kana uu tuhmay okay kani waxa la weydiinayaa maxaad haysaa maragyo Fahad Yaasiin لانه هو قول انشاء maxaa marag ah maxaa la taaban karaa ilaa dadka baaxisiinta junaadka ee dambi baarayaashu ma raacaan waxa hadalka hatta waxa laga mamnuuca in idaacadaha dhageystaan telefishinada dhageystaan suuqa waxa lagu leeyahay dhageystaan dhagahay ka laabtaan waa inay ku socdaan sida maaratay gaari faraska waa inay ku socdaan xaqaa'iqda uun okay arintaasi saabudi Fahad wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha ka dambeeyay waxaana kala shaqeeyay cadaala waxaana gacanta ku lahaa ninka la yiraahdo Mahad Salaad su'aashu waxa weeyaan min ayna laka hadhihi al-adilla waxbuu soo bandhigay laakiin wuxuu yiri adillada waxaan ku bandhigi doonaa meeshaas wuxuu yiri waa laba meelood imika waxaan u bandhigi doonaa meesha la yiraahdo amniga qowmiga ee wadanka labo
maxkamadna haddii laga yeedho ma diidayo mamnuuc maxkamadda loo diidi karo idan waxa weeyaan meeshaan oo ku badhigi doonaa buuri marka maxaa laga rabaa isagana waxaa laga rabaa adilo cad ra'iisul wasaaraha oo nin culus ah ayuu tuhmay wuxuu tuhmay ninka wasiirka cadaalad wuxuu tuhmay ninka maanta muqaabaraadka isaga meeshiisii fadhiistay muxuu ku tuhmay inay ikraam tahliil dileen ikraam tahliil dilkeegu waa problem laakiin wax ka weyn baa jiro halka dambe yaala arintaasi marka khatartu waxa weeyaan ikhwaani fillah waxyaalada cajiibka waxa kamid ah markii la rabay in laga takhaluso isaga wuxuu sheegay in ay ka shaqeynayeen 5 qolo kow waxa ka shaqeeyay ra'iisul wasaaraha waxa kala shaqeeyay ra'iisul wasaaraha waa lambar 1 lambar 2 waxa kala shaqeeyay buu ra'iisul wasaaraha mukhaabaraadka maaratay dalka Soomaaliya meeshuu ka shaqeyn jiray 3 waxa kala shaqeeyay safaaradda Djibouti 4 waxa kala shaqeysay dawladda isagu ma sheegin ana sheegaya dawladda Imaaraadka 5 waxa ka shaqeysay ninka la yiraahdo Abdullaahi Abdi oo xukuma booliska Djibouti ka ah maaratay hogaamiye waxayna siinaya sir maanta aan hayo waxa weeyaan in laga takhaluso in la doonayay 3 arrimood baa taala diyaarad baa ka soo kacaysa Imaaraadka inay qaadatay ahayd isaga diyaaradda Imaaraadka ka soo kacaysay waxay ahayd inay isaga qaadato kadibna halkee geynaysa sidii Khashoggi loo dilay ninkii loo oran jiray Sacuudiga ahaa in la googooyo ahayd kadibna meel loo diro waa lambar 1 lambar 2 waxaa laga shaqeynayay in laga saaro mataarka oo la geeyo haddii taahir geli weydo hotelkaana wixii ku qabsanaya uu ku qabsado waa talabaad arinta saddexaad waxay ahayd ninka la yiraahdo Abdullaahi Abdi wuxuu rabay in uu sumeeyo wayna sheekaysanayeen dadka amarka soo siiyay iyo isagu marka waxa in la sumeeyo maanta saaka oo ila hadlayo maanta galabta aan ila hadlayo oo aan joogo maaratay magaalada Minneapolis Minnesota inkuna aad joogtiin in badan geeska Afrika waxa weeyaan waxaan idin sheegayaa ninkii in uu ka takhaluso ahaa oo la yiraahdo Abdullaahi Abdi dawladda Djibouti way xidhay waxaana lagu xidhay waxyaalo kale laakiin waxa ugu culus ee lagu xidhay waxa weeyaan waa arinta Fahad wuxuu hayaa sir culus buu hayaa ninkii maanta wuxuu ku jiraa dhakhtarka la yiraahdo al-mustashfa Suudani dhakhtarka Suudaan la yiraahdo ay Djibouti ku leedahay dhakhtarkaas oo la keeno qofkii sii socday laga takhalusay dawladda Djibouti ee dilayso marka ninka wuxuu la yiraahdaa waa kanzi buu ahaa kayd istaraatiijiya oo asraarta aqalka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar iyo Khadra Xayd ay hayaan ninka xajinaya buu ahaa dad badan uga takhalusay maanta sirta Fahad lagu dilay isaga haya yaa badbaadiyay marka Fahad wuxuu inii sheegay qaar kamida xukuumadda Djibouti baa badbaadiyay buu warcad waxaan ku hayaa in uu badbaadiyay ninka la yiraahdo Xasan Saciid waa ninka xukuma sirdoonka Djibouti asdaasta ninkaasi wuxuu markuu maqlay ninkii mukhaabaraadka ahaa ee dalka Soomaaliya ayaa ku xaniman mataarka Djibouti wuxuu yimid mataarkii wuxuu yaa haysta waxa lagu yiri waxa haysta Abdullaahi Abdi ninka rada booliska xukuma oo muxuu haystaa waxa loo sheegay wixii dadka loo sheego ah diyaaradda xun iyo wax ba kharaabay waxan wuxuu hayaa warka ka soo baxay dawladda Turkiga oo dhahday diyaaradda oo dhammaan dadkii rakaabka sida waa inay ku soo noqoto wadanka Turkiga markaas wuxuu yiri waxaan hayaa warkan oo iga soo gaaray safaaradda Turkiga waxa muhiim ah wasiirka arrimaha dibadda wixii oo dhan waxa muhiim ah in ninka la sii daayo arintaasina waxa cirka ku shareeray wuxuu ahaa dawladda Soomaaliya oo gaarsiisay Djibouti Turkiga gaarsiisay amniga Fahad inay mas'uul ka yihiin Turkiga iyo Djibouti marka ninkii khadki waa ka baxay ma Abdullaahi Abdi laakiin Abdullaahi Abdi wuxuu hayaa sheekadii dhaxmartay inay Imaaraadku imato inay qaadato in la sumeeyo sirooyaadkii la dhigay iyo in la dilo oo lagu dilo maaratay hotelada Djibouti kamid ah intaas oo dhani waxay sirooyaadkii la dhigay number 1 number 2 number 3 APC baahid maxaa fashiliyay ninka mukhaabaraadka Djibouti xukuma oo Xasan Saciid la yiraahdo waxaa fashiliyay ninka la yiraahdo Xasan Madow loo yaqaan waxaa fashiliyay wasaaradda arrimaha dibadda oo yadna ay warkii Soomaaliya warkii Turkiga u yimaadeen
waxaa fashiliyey oo kaleeto dowladda Soomaaliya oo kor u qaaday oo tiri ninka mas'uuliyadiisa waxa mas'uulka ka iyo ka okay marka arrimaha uu soo bandhigay waxa weeyaan Fahad wuxuu yahay maanta waa keyd sir oo laba lugood oo socda waa keyd istiraatiiji ah wuxuu hayaa khilaafkii Kenya iyo Soomaaliya intuu leeyahay halku ka bilaabmay ninka qura ee si sir u hayo weeyaan wuxuu hayaa khilaafkii Ethiopia halku ku dhamaaday maxaana isbedel ku dhacay wuxuu hayaa Eritrea ciyaalkii la geeyay halkii joogan wuxuu hayaa gudaha Soomaaliya maxaa ka socda kulluha gacantiisa ku jiraan marka muxuu yahay waa keed istiraatiiji ah oo siyaasi ah oo amni ah macluumaadka uu hayana waa ta keentay in gurigiisa la weeraro limaada guriga loo weeraray maxaa guriga laga doonay qofka maxkamadda la taagi dara guriga ma la ilaaliyo ma askartu ku meersamaan ay raadaan markuu soo noqday loo yeero maxkamadda waxa la oran doonaa waxaan soo qaad macluumaadkii keen ma la dhaahdo limaada waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa khutuuradda uu leeyahay ninka kani iyo halista uu leeyahay ninka kani okay taana waa ka baxnay su'aasha waxaan marnaa tawqiidka muxuu hadli waayay markii ay dawladda u dhex fadhiyay uu sheegay isagu laba shay buu sheegay aan waxaan ku daray laba shay oo kale muxuu hadli waayay waqtigu dawladda dhex fadhiyay uu sheegi waayay asraarta uu hayo su'aashu waxa weeyaan ayuu u sheegay waqtiga aynu waxaan dhacayeen dawladdu way burburtay dawladda Soomaaliya maamulkeedu uu burburay muxuu ku burburay wuxuu ku burburay qolo raacsan Farmaajo iyo qolo raacsan Roble wuxuu ku burburay arinta ka khatarsan wuxuu ku burburay dawladda maartay umqigeegi arkaanteedii way kala tageen way isku iman kari waayeen majliska amniga qowmiga ee dawladdu uu shiri kari waayeen halkuu warka ku sheegi karaa lama ay meel warka sheego marka warka inuu sheego isagu wuxuu dhaanu saxaafadna ma siinaya maxkamadda ma siinaya warka waxaan siinayaa meel warka la siiya jirta amni qowmiga madaxweynaha xukuma ra'iisul wasaaraha ka soo qayb gala wadanada qaar laakiin lama garan karo Soomaaliya wuxuu uga qayb galo madaxweynuhu hadduu kul joogo waa inay joogaan ciidamadu waa inay joogaan wasaaradda dibadda wasaaradda gudaha iyo waa inay joogaan maaragtay dadka saas la mid ah laakiin dawladdu waa dawlad ri'aasiya madaxweynaha warka la siiyaa madaxweyne ku xigeenka xataa soo maaragtay lama siiyo marka qaarkood marka taasi waa muhiim jiddan waxa la siiyo waa tawayaan arinta kale wuxuu yiri marka arinta waqtiga uu sheegi waayay muxuu dib ugu dhigi waayay waa waxa dhacaya waa inuu degdeg u sheego sabqi zamaniga waa inuu ilaaliyo waqtiga waa inuu ilaaliyo waqtiga waa muhiim okay dadka qaar waxay leeyihiin ma waxa jira dagaal la doonayo in Xasan Sheekh oo madaxweynaha wadanka ah in hoos loo dhigo xafladihiisii oo dadka lagu mashquuliyo dhismaha guriga madaxweynaha iyo arintani ninkan maxaa dhada Fahad warka uu keenay oo ay suuqa qabsadaan ma taasa haddaan u fikirno sida muraahaqada ya dadka loo yaqaan maratay adolescence-ka ee yaryar haddaan u fikirno taasaan qaadanayna laakiin haddaan u fikirno sida nin siyaasi ah waxa weeyaan taas maaha waxa weeyaan waxa meesha keenay in uu waqtigan hadlo waa arin amni ah waa security-giisa siyaasiga ayuu ilaalinayay amnigiisu ilaalinaya noloshiisu ilaalinaya sumcadiisu ilaalinaya intaas oo dhan buu dhowrayaa okay intaas waa ka baxay su'aal khataran ka hadlaya marka aad u fiirsatid hadalkiisii ninkan maxaa run aha maxaa been aha maxaa xaqiiqo aha maxaan xaqiiqo ahayn saddex qaacido aan siinaya alqaacidadu koowaad wax weeyaan anigu muhiim ma aha inuu been sheegay iyo inuu run sheegay macna ay sheegaysa ma jiraan daliil baan sugayaa wuxuu yiri daliil baan ka doonayaa waxa laga yiri daliil baan ka doonayaa daliilka ay xukuma daliilku ma aha gabadhu niista ka shaqeynayso niista dishay raxmatullaahi calayha ma aha daliil waxaasi daliilku ma aha waxa weeyaan waxa dilay mahad salaad daliil ma aha waxaasi ra'iisul wasaaraha dilay daliil ma aha waa hadalkuna waa hadal macna ma leh la budda min daliil waa inuu marag yeesho marag ma hayno ilaa imika yaa dilay marag ma hayno marka hadalkiisu muhiim wuxuu ku noqonayaa markuu aragti keeno labo waxa kale oo muhiim ah aniga agteed waxa muhiim ah qofka hadlaya intuu leeyahay muhiim ma aha muhiim laakiin waxa muhiim ah muxuu ka hadlayaa saddex aniga muhiim ma aha qofku waa mucaarad shacabkan u tumi iyo waa muxaafado shacabka ma tumayo aniga waxba ma sheegayso shacabka waxba ma sheegayso
amba tun amba hatumin ila jir amba iga jir agteeda waa ibir saawiya zero macna ay leedahay ma jiro waxba ima korinayso waxaan igama naaqusaysid laakiin aniga waxa waxay taraya maxay waxa waxay taraya xaqiiqadii la gaaro sidaa daraaddeed marka aan hadalkiisa u fiirsado saddex arrimood baan kala soo baxay kow nin kalsooni isku qabaa quwa fi shakhsiya xoog labo waa dhankii positivekii nin waxa uu ka hadlayo sida uga hadlaya garanaya bartay sida dadka loo qanciyo macluumaadka sida ugu fudud u gaarsiinaya saddex waxaa iga soo baxay inuu garanayo dadka is hayaan iyo yihiin dadka is hayaan waa ayo anigii sheegay guduhu waa saddex waxay is hayaan madax mucaarada waxay is hayaan madax iminka dowladda qabatay waxay is hayaan dad u naca muxuu u najaxay oo u guulaystay isagoo wadaada labo waxay is hayaan dowlado Kenya iyo waxay is hayaan dowlado jaara Djibouti waxay is hayaan dowlado caalami ah oo ay ka mid tahay imaaraadka sacuudiga iyo basar bay is hayaan marka ninkani dadkaas oo dhan way is hayaan uu garanaya dadka ula hadlayo iyo isaga is hayn dad badan oo shicibka Soomaaliya isma hayaan way tirsadaan labo isma hayaan Eritrea Ethiopia isma hayaan Qatar Turkiga isma hayaan dadka waa isku xulufo isku meel yihiin marka uu garanaya risaaladiisa ayuu diraya ayuuna ka hadlaya ayuuna ula hadlaya uu garanaya okay taan waa fahmin okay waxa weeyaan hadaba arinta halista waxa weeyaan shakhsiyadiisu waa taas dhinaca wanaaga dhinaca kaleeto shakhsiyadiisu waa maxay waxaan anu aad uga horjeestay markuu yiri dawladda waxa ugu labarwan ah ee ugu fiican waa maxay waa majlis waa mukhaabaraadka la dawladda mukhaabaraadkeegu uu ka barara dawladnimada waa laga cabsoodaa dawladda waxa ugu muhiimsan waa maxay waa xuquuqda bini aadamka waa xurriyadda waa cadaaladda waa educationka waa caafimaadka waa dhismaha dawladdu waxay leedahay afar awoodood waxay leedahay awoodda ilaalinta awoodda difaaca awoodda kobcinta awoodda ilaalinta awoodda kobcinta iyo waxa marka leedahay awoodda ximaayada amnigu waa ximaaya wadanku ilaaliya laakiin waxa ka horeeya kuwa kale oo dhan ba ka horeeya awoodaha kale ka horeeya marka taasi waan ka naxay markuu yiri isha dawladdu waa mukhaabaraad arinta labaad aan ku diiday waxa kamid ahaa in uu ma aragtay dadka is hayaan run ahaan weerar la xal ayuu ku qaaday marka intaas waa intaas maxaa ku tusayay inuu marka qaarkood marka aad luqadda jasadka jirka eegtid marka qaarkood waxay dhahdaan culimadu markuu qofku cirka eego hadduu hadlayo waxaa ku jira afar arrimood fikrad uunan ogeyn oo ku soo biirto inuu fikiro u baahan tahay labo malal inuu ka daalay su'aalahan ama waxaan la weydiinaya saddex inuu ixbaad qaaday oo qoostay ugu dambayso maxay inuu cadhaysan yahay culimada jirka ka sheekeeya luqadoo dhan inta waxaan aad ula yaabay gacmihiisu meel kale ma aadayn qaar baa soo qaaday inuu sidan lahaa dad badan baa saa idhahda ragga fikiroo dhan qaar baa saa idhahda qaar baa sidaa idhahda qaar baa sidan idhahda qaar baa sidaa idhahda qaar baa sidaa idhahda intaasoo dhan waa caalam lagu fikiro maaha wax dhibaato ah laakiin ta dhibaatadii waa tan weeyaan inuu cirka eegay limaada waay afartan mid unbu ahaa marka isagay ku maqan tahay inuu ka jawaabo marka ikhwaani fillah waxa weeyaan wuxuu ka hadlay waxay ahayd arrimo halis ah oo amniga dalka taabanaya waxaana kala soo baxnay inuu yahay nin halis ah oo akhristiisu aynan caadi ahayn waxaan aad ula yaabay oo inaan ka baxan jeclahay waxaa lagu yidhi marka aad hawsha ka baxdid maxaad qabataa aad baan ula yaabay wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi sinimo weli ma gashay sinimo may buu yidhi ma ciyaartaa baa lagu yidhi sport may buu yidhi waxaa lagu yidhi maxaad qabataa anu wuxuu yidhi waxaan ahay qof jiddi ah waxaan akhriyaa bas marka waqti hal wax baan akhriyaa aad baan ugu farxay inuu wax akhriyo wuxuuna yidhi taariikhdan akhriyaa aad baan ugu farxay taas laakiin ma jeclaysan inuu yidhaahdo waan dursanahay ma jeclaysan hargab baa haya ma jeclaysan inuu yidhaahdo shinimo weli ma gelin dad baa haysta Soomaalida xitaa wadaadada qaarkood inuu shinimo ugu xaaran yahay la
shinimooga marta reer galbeed la joogo shinimooga waa la galaa limaada waxaa jira shinimo arshiif ah taariikh ka warramaya ka warramaya jira filin ka warramaya ciyaaro filin taariikh filin sport filin maaragtay wax badan bay filmaanta ka warramaan filmaanta wada xumaan maaha number 1 waliba khastan isaga waa inuu filmaanta daawado filmaanta booliska waa inuu daawado arinta kale ee yaabka badan wuxuu yiri sport ma ciyaaro waa inuu qofku gym uu tago oo sport ciyaaro isagoo kale waa muhiim waa inuu dhidido marka taasina waa yani faraaqa badan arintaasi waa isweydiiyay marka anu saasanahay waana run way ka muuqataa inuu sidaa yahay waxaan dhageystay nin raado doctor Imaadin Khaliil oo mufakkir Iraaqiya xafidahullah waxaa lagu yiri wali film ma gashay wuxuu nolosha mar baa galay sport ma ciyaartaa ma ciyaaro maxaa sameeyay waan yar loogayaa buu markaan miskiidka tagaya ka soo loogaa laakiin maxaa nolosha sameeyay waxbaan akhriyaa waxbaan qoraa dadka caynkaas way jiraan waana dad naajixiina marka jidiyadu nolosha ka mid tahay intaas ka bixilaa intaan dib u kulmi doono mar kale taariikhda nolosheena insha Allah sidii caadiga inoo ahayd waxaan naga tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.